hoose degmada Burco go'aamadii golaha deegaanka uu soo saaray waxa kamid ah in baabuurta qaadka sida ee magaalada dhibaatada badan ku haysta dadkii iyo ganacsigii iyo baabuurtii oo intaba ay halis ku hayaan dhibaatooyinkaas faraha badan le markii la eegay golaha deegaanka degmada Burco wuxuu go'aansaday baabuurta qaadka soo gelisa ee magaalada ku barta sida xawliga ee hoonka argagaxa leh ku tumaysa ee aan dhakhtar eegaynin ee iskuul eegaynin ee suuq eegaynin ee cidnaba u turaynin in loo sameeyo xero qaad oo baabuurta ka imanaysa galbeed qaad ka keenaysa ee qaadka ku rogaan dabeedna baabuurta yaryar ee supplierska ah ee magaalada qaadka u qaybiya halka qaabolo ay kaga qaataan oo qaadka magaaladii si nabadgelyo oo edebsan u galo annaga wadaan noo guddiga fulinta dowladda hoose degmada Burco waxaan ku qasbanahay inaynu fulino go'aamada ka soo baxa golaha deegaanka degmada Burco waxaan markaa ballan qaadnay sanadka cusub inaanu go'aanka fulin doono bishii koowaad ee 2020ka sida ka muuqata hablahaas ay qaban doonaan codsiyada iyo araajida iyo sifiyada mashaqa qaran ee madaxweynuhu bilaabay runtii oo himiladiisa ahayd waxa ka faa'iideystay arday fara badan oo Soomaaliland ka kooban oo tirada 1500 arday ay gaarayso barnaamij marka wacyigelin halka diraya waxaan u diray bulshada gobolka Sool ku dhaqan meel kasta joogto waxaan leeyahay maanta waxa inoo bilowday qabashadii araajidii codsiyadii iyo sifiyada shaqa qaran maalin kale qof tabi doona oo oran doona maxaa la iga tagay tomorrow waan ognahay doorkii hore wixii ka dhacay tiradii leenu talagalay meeyna buuxin sanadkan tirada aynu helnay waa 152 qof 99 waa wiilal maanta 45 waa hablo ama 46 sideed qofna waa dadka naafada ah